السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان صاحبada janalkan Muniir Mersi ku xiran axbaabi soo dhawaada waa walaalkiin oo maskiinka alle. Maanta waxaan rajeynayaa inaan nabad qabtaan alxamdulillah. Waa ogahay dhibaatooyinka nolosha iska badan tahay. Intii culays uu haysto Ilaahay ka dulqaado. Intii wanaag iyo khayr ku jirtana Ilaahay u ziyaadiyo, Ilaahayna ku madceliyaan. Wa nashkuruhu wa alxamdulillah rabbil alamin. Axbaabi maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo video laga soo duubay gabar Soomaaliyeed oo aad loo jirtilay xanuun badan marka aragto sawirka iyo muuqaalka. يعني noloshan markii aad يعني mar walba aad sii joogto waxyaabo cajiib ah arkaysa. Muuqaalkaas wuxuu ku saabsan yahay sawirkan thumbnailkan soo saaray wuxuu ku saabsan yahay gabar Soomaaliyeed oo ninkii qabay uu jir dilay oo aad u garaacay. Axbaabi inta badan way jirtaa way dhacdaa laakiin mar baan aragnaa ayadoo muuqaal laga soo duubay ayadoo sawir laga soo qaaday يعني gabadhii la jir dilay la dhibaateeyay. Ragga dhan ma wada xumaa ragga Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed dhanna ma wada xumaa. waxaa jira marmar qof wanaagsan oo qof xun lagu imtixaanayo. marmar waxaa guursanaysaa adoo qof wanaagsan ah qof xun. waxaa laga rabaa marka inaad adigu dul qaadato. marmar adoo يعني iska dhexdhexaad ah qof wanaagsan kugu soo aadayo oo kugu dul qaadanayo nolosha. يعني mar walba ku sabraayo. mar walbana hadii aad aragto dad isku faraxsan labada qofood is qabta wiilka iyo gabadha farxadaas waxa keenaya waxa waaye labadood midkood ayaa ka tanaasulay xuquuq asaga uu lahaa. يعني ku sabray qofka kale dhibtiisa iyo waxyaabaha markaas negative ka imaanaya xaqiisa. noloshan ma waa intaasba. mar walbana Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadii aadan wili guursanin waxa Ilaahay weydiisataa qof wanaagsan inuu Ilaahay kugu soo aadiyo. hadii aad wiil tahay iyo hadii aad gabar tahay. wiil hadii aad tahay zawjo saalixa ah inuu Ilaahay kugu soo aadiyo oo ku waafajiyo ku duceyso salaad walba tukato intaas Ilaahay weydiiso. Ilaahay wax walba la weydiistana waa laga helaa. gabar wanaagsan zawjo saalixa hadii ay kugu soo aado waa ku guuleysatay noloshan oo waa ku liibaantay. maxaa yeelay yani sida adoo yani janno ku nool oo kale ay la mid noqonaysaa markaas. Ilaahay subhanahu marka aan u soo laabano gabadhan aadka loo dhibaateeyay sawirkeeda hadii aad aragto muuqaalka laga soo duwa hadii aad aragto aad xanuunsanayso oo aad la damqanayso waxa yani dhacdada u dhacday in gabadhaas markii ay isguursadeen wiilka oo ay 20 beri wax ka yar isla joogeen in uu maalin inta u yimid uu yani garaacay. waliba intuu dhahay orod soo bixi joodariga oo soo bixisay darin joodari isku saartay barkintii u habeysay markii ay yani intaas u qabatay oo amarkiisa yeeshay oo gabar wanaagsan oo cafifa oo adeecaysa ay noqotay ayuu garaacis ijug ku bilaabay sida ayada ay noo sheegtay. marka xanuun waay Soomaha in gabadhii aad raalida ku ahayd adig ku wanaagsaneed oo soo guursatay oo gurigooda aad ka soo wadatay inaad garaacdo jir disho. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa'ashiruhunna bil ma'ruf. wanaag kula macaamilo kula noolaada kula mucaasharooda oo waxa kamid ah in meherkeeda aad bixiso nafaqadeeda aad bixiso hadal wanaagsan aad kula hadasho inaadan ku xad gudbin in yani ay yani ka dareento inaad tahay qofkii wanaagsanaa oo garabkaaga yani ay ku tiirsato oo wanaagaas inaad u muujiso ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala mal walba kula dardaarmay ragga. marka ayaga ragga waxa laga rabaa hadii dumarka xataa ay qalafsan yihiin inay u dul qaataan oo wanaag kula dhaqmaan oo sida diinta Islaamka ay farayso ay sameeyaan. ma aha inay garaacaan oo jir dilaan oo waji bedelaan oo hatta hadii ay furaan oo kala tagaan hatta nin kale uusan u gursan waay ama yani halis gasho maxay la quruxda wajigeeda nuurka Ilaahay ku abuuray ayaa bedeshay oo jug iyo dhibaata u geysatay. macnaha kaliina ma noqonayso jirkaas jugtaas yani jir dil oo physical kali kuma koobnaanay badana. yani marka qofkii gabadhii aad jir disho moral ahaan waa isbedelaya waxa laga yaabaa inaysan gadaashaada guursanin oo nolosha ay ka niyad jabto xanuunka u geysatay dartiisa oo maskaxda yani qalbigeeda uu jabo oo hatta hadhow yani aysan guursan weyso oo nin kale ay guursan weyso ama ay u ogolaan weyso nin kale inuu hatta la hadlo. maxaa yeelay adaa moral ahaan u bahdilay u jir dilay kaliya jirkeeda leh wax ma gaarsiini. marka ragga waxa laga rabaa inay si wanaagsan kula dhaqmaan dumarkooda inay noqdaan yani ragga wanaagsan sidii nabiga cali salaam uu ahaa. yani khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. kiin idinku khayr badan waa kan ehelkiisa u wanaagsan oo yani u dibacsan oo yani u turaayo oo wanaag kula dhaqmaayo oo nolosha wanaageeda iyo khayrkeeda yani tusaayo oo macnaha ku raaxaysanayo kula raaxaysanayo markaas reerkiisa iyo ugu horeyso xaaskiisa. marka aan noqono sidii nabi maxamed cali salaam uu ahaa anagana uu yani noo sheegay aan noqono kuwa yani wanaagsan inaan jir dilin gabdhaha masaakiinta ay guriyahan ka soo wadano. hadda su'aalo video waa idin tusi doonaa waa kana soo daawada xanuunka
يعني gabadhaas wajigeeda ka muuqda iyo hadalkeeda markaad dhageysato yani aad ula cajibaysaa marka insha Allah yana noqonin dad macnaha mar walba xumaanta iyo macnaha dhanka يعني negative ka wax yani xageeda u bata ha noqono dad wanaagsan macnaha inaad gacan qof u qaad wax wanaagsan ma aha cadowgaaga kaliya gacan loo qaada laakiin sokeeyahaaga qofkii ilmahaaga yani dhali lahaa qofkii aad soo yani nolosha ka soo dooratay inaad jirtisho garaacdo ma aha marka insha Allah muuqaalka soo daawada marka daawataan waxaan rajeynayaa in muuqaalkan aad ka hesheen like saara asxaabta u share gareeya oo ku maasantiin daawashada muuqaalkan yani aadan ugu xumahay gabadhaas wixii ku dhacay gabdho badan waa ogahay inay ku dhacaan dhibaatada noocaas oo kale oo lagu sameeyo maxaa yeelay nolosha macnaha badana camera lama hortaago يعني waxa oo way yartahay inta oo hadda wax laga soo sawiro oo wax laga soo duubo dhibaato ku dhacday oo laga soo duubo way yartahay inta bacna dib loo geysto hadana aan arkin ayaa badan oo marka insha Allah waa ka xumahay gabar kasto dib loo geystay oo si gardara ah yani dhibaato loo geystay dibta ku dhacay waa ka xumahay gabdho idinkana hal dardaara intaana muuqaalka idin soo bandhigin gabdho idinkana u fiirsada qofka aad guursanaysaan iska fiiriya yani nolosha dadka badana ragga waa un iska dhibaato badan yihiin waxyaabo badan ay la soo kulmeen maxaa la dagaalo iyo rafaad iyo nolol ciriiri ah saboolnimo waxyaabahaas rag la soo kulmay oo waxaa jiraan oo maskaxiyan aan fadhinin marka raggaas oo kale haday kugu soo aadaan yani mar walba aday dhibaatadii kugu soo celinayaan oo adaa markii u tagay ama adaa ogolaad inaad guursatid haddii yani aadan ku degdegtay oo aad ogeyn dhib male laakiin mar walba iska fiiri qofka wuxuu yahay meeshuu ka imaaday meeshuu ku dhashay wuxuu qabtay wuxuu qaban jiray wuxuu hadda qabto reerkiisa ehelkiisa waxa dhan inaad iska fiirisid oodan ku degdegin qofka aad guursanaysid ayaa wanaagsan insha Allah markaas marka waa ilaahay u tala saarta ninka aad guursanaysiin dooq inaad yani marka dooranaysaan inaad marka hore iska fiirisaan ilaahay u tala saarataan inuu ilaahay mid wanaagsan idinka ka dhigo oo mid idinka adiga ku dhibaateenin reerkaaga dhibaateenin ilaahay inuu ka dhigo ilaahay intaas weydiista waa ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan insha Allah muuqaalka soo daawada videogan kadibna halkan ugu baxaya waa ku mahadsantiin boqol jeer assalaamu calaykum soo dhawaada السلام عليكم. أقول سنة أرنتي كسو قارتي أرن مارتي تدوينها سوماليدا الحبسي واي أو مارتي السوشيال ميديا أما برها بوشاز مارتي كوفافتي مركا سيدي وحو دعين أنا واحد عبي مركي هذين كسبتي ذي لكن سويش جمعها أنا بحي حافظين هذه صار حافظين مكان هذه سير مركو مخنا سفر يرجري حافظة أنا جوو إيه ما ذي مخرب بدي مركيه صبح يقول حافظة أدينا عشان أكرم سهاي وين أقول هاي ذي ما بحنا مركيه ده لو وسع ميلاس حافظة أني بس كل ما كانت في مركان تبقى ما كنا يقولوا الباب كيس حري هذا نتكون بسحر خلق سحر محاجرة كده عام هقولي أو حرسة مركز يقول هاي محافظة كده هذه وش يصير بنانك بنانك اتفاق صوري هذا نجادر يسوي به قال كان تصبر هذا نسوق فلي جودر يعني أنا إسكيد فريست مركان فريست وجودر بسكر استعمال مركان بسكر استعمال سنة وفيري ومربحه وبلاوي لا مركان من الوالد نحو أركب نوالع قصدنا هالكي كده عليه نيروبي مومباسا غاريسا قحوتي هالكي كده عليه قحوتي كده حاجة أوكي markii kadib maxaa dhacay kadib ana meeshii aan soo xabo waxaan kale uga ma jirto kadib asay waxay ugu fan karaan buuftay haranti feel waxaan linkaaga waa sama muddo goormeed maartay markaad isqabteen 19 February taariikh 28 markii aan dhigay adig mars markii taariikh koowan joogay aroos baa ahayd هي ما ستنا 19 كوا كان لنا أرنتي هذا بحالة قبته إلا وقت كان مارتاي بحالة قبت الدولة محيك قبتي ما إحنا قبتي الله هذا الدولة دي قوتنا معها لأنه أسكحنا وصنا ولي سوق هذا أنت مكانه هل كيت كوبتي أسكت ما نقول شيء كلام ما خانق بوليس ستيشن ما تجين ستيشن حاجة دايرة تجي مرق ورق كريس ورق كريس مرقدي واحد من ديك ويل اخترت حكى لي وي مرك أنت عليه سوق هذا ما حد عد سنة أصلا دولة الدوحية خون كرتينا وهي بتوع بس
dumarka qaarkood waxaa waayo way cafiyaan qofkii wax ku dhifta ama dila marka xoogaa hoosan waad fiirinaysaa maxaad is leedahay haddii maaragtay gacan lagu dhigo miyaad cafinaysaa miyaad leedahay sharciga hamar ilaa sharciga meel hoos iga saarana okay hadda intee ku daran xanuunka indhaha ay daran wax ma ka arkay wax yar indhaha wax yar ka arkay intee ku macnaha indhaha iyo meel kale wax kaga dhuftay xawdkii dhabarka meel badan iga dhuftay dabeecadaha muu lahaa 19 casho ka hor macnaha markeed xoogaa isguursateen kadib miyaad ku aragtay mise marka hore inuu qof dabeecad xun guursana kadib dabeecadaha nala soo baxay marana iska keenay maxay ku dhayn takhtariinta meel maa ku jaban indhaha ilaa iyo yani ما يوحجوك بمكان لكن ما لي مجال. Okay. Thank you so much. صلوا